Trump waa uu cadeeyay mowqifkiisa la xiriira inuu aqoonsi siiyo Somaliland muxuu ka yiri xogihii iyo macluumaadkii ugu dambeeyay sida ay dunida kaga falcelisay tallaabadii gurracaneed ee ay Israa'iil Somaliland ugu aqoonsatay dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale xogahaas ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiin haddii aad ugu cusubtiina ku soo biir page-kayga ka mid noqo saaxiibada ugu xiran aragtidaadana qaybta faallada ama comment kaga soo dhiibaha kan ku bilaabo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa cadeeyay mowqifkiisa ku aadan in Somaliland loo aqoonsado dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale maadaama si weyn loo hadalhayay kulanka toddobaadkan ka dhici doona dalka Mareykanka ay wada yeelan doonaan ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Netanyahu iyo la mid ah Donald Trump in Netanyahu uu hordhigi doono dalabka ah in Somaliland uu aqoonsado dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale kadib markii uu shalay gelinkii dambe uu qaaday tallaabo gurracan oo uu ku soo farageliyay madax bannaanida dhuleed ee Soomaaliya isagoo oo Somaliland uu aqoonsaday dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale Donald J. Trump oo warbaahinta New York Post ay wax ka weydiisay arrintan ayaa si cad u cadeeyay in Mareykanka uusan ku degdegi karin in Somaliland uu aqoonsado dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale wuxuuna si cad u sheegay inay muhiim tahay in ay dib u eegaan fariinta codsiga ah ee dhinaca Somaliland kaga timid iyo aragtida ku qotonta gooni goosadkooda wuxuuna sheegay in Paris ay u baahan tahay oo aan lagu degdegi karin waxayse u muuqataa tani in Trump uu gabi ahaanba meesha ka saarayo qorshihii kol hore ee ay wadeen xildhibaano ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah oo ay ku doonayeen in Mareykanka ay Somaliland u aqoonsadaan dalka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale oo muddoba ay u ololeynayeen lana rumaysan yahay in Israa'iil ay wax kala ogeed dowladda Mareykanka tallaabadii shalay uu ku aqoonsaday Somaliland in ay tahay dal gaar ah oo ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale Donald J. Trump diidmadiisa qayaxan ee la xiriira in Somaliland uu aqoonsado dal gaar ah waxay muujinaysaa inuu si dhow ula socdo cadaadiska dunida ay ku saareyso Israa'iil tallaabadii shalay ay sida tooska ah ay ugu dhiiratay in ay ku dhawaaqdo in Somaliland ay u aqoonsan tahay dal gaar ah waxaa dunidu ay si weyn uga falcelisay tallaabadan gurracan oo ay ku tilmaameen in ay tahay mid xadgudub ku ah madax bannaanida Soomaaliya isla markaana dhaawici karta amniga guud ee geeska Afrika isla markaana ay horseedi karto in la buriyo qawaaniinta caalamiga ah in dalalka qaar ay xadgudubyada ay sameynayaan ay ka dhalan karaan tallaabooyin waaweyn oo marnaba aanan la dafiri karin culayska dhinaca amni ee ka imaan kara waxaa la rumaysan yahay in wasiirka arrimaha dibadda dowladda Turkiga uu udub dhaxaad u ahaa in dunida ay si isku mid ah ay u diidaan tallaabada ay Israa'iil u qaaday in Somaliland u aqoonsato dal gaar ah waxaana dadaalkiisa ugu badan uu ku bixiyay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ee uu la sameeyay dalalka ay saaxiibada dhow yihiin iyadoo oo war-saxaafadeedii ay soo saareen si midaysan u diiday gabi ahaanba tallaabadaasi magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland wararka ka imaanay waxay sheegayaan in ciidamada booliiska xalay magaaladaas ay ku xirxireen dad si weyn uga biidiiday tallaabadan una arka in ay tahay mid ku xadgudub ku ah jiritaanka Soomaalinimada iyo jiritaanka Islaamnimada isla markaana horseedaysa in shacabka reer Falastiin ee ay duulaanka qaawan Yahuudda ku qaadeen lagu dulminayo magaca Somaliland diyaarna aysan u ahayn dowladda federaalka Soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saartay ayaa si adag kaga hadashay waxaana jira kulamo kale oo maanta loo balansan yahay iyo tallaabooyin diblomaasiyadeed oo ay qaadi doonto Villa Soomaaliya war degdeg ah kulan xasaasi ah walbaabada ay u xiran yihiin kana qayb galayaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynayaashii hore ee dalka Farmaajo iyo Sheekh Shariif iyo inta badan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa goordhow ka furmi doona xarunta madaxtooyada qaranka ee Villa Soomaaliya siyaasiyiintii Soomaaliyeed khilaafkii dhexdoodii ah dhinacay isaga beereen mowqif adag ayay ka qaadan doonaan tallaabada gurracan ee Israa'iil ay ku soo xadgudubtay madax bannaanida qarankeena xogo iyo macluumaad ku saabsan ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiina haddii aad ugu cusubtiin ku soo biir page-kayga ka mid noqo saaxiibada ugu xiran
aragtidaadana qaybta faalada ama commenti kaga soo dhiib hagaagtan ku bilaabo. xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxa ay iska xaadirinayaan villa Soomaaliya iyaga oo dhan iska dhigay siyaasiyiinta Soomaaliyeed isla qabsiga dhexdooda ee ku saleysneed siyaasadda waxaana mowqif midaysan ay ka qaadan doonaan tallaabada guracan ee Israa'iil ku soo xadgudubtay madaxbanaanida Soomaaliya Somalilandna u aqoonsatay dal gaar ah oo ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo qadka taleefanka kula xiriiray xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka way ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka inta nool waa saddexda madaxweyne Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan, Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo ku jiraan ra'iisul wasaarayaal hore ayaa dhammaantooda ajiibay codsiga madaxweynaha ee ah in kulan degdeg ah la isugu yimaado marka laga reebo madaxweynihii hore ee dalka Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ka cudur daartay sidoo kalena sheegay in qadka taleefanka uga qayb gali doono kulankan. waxaana daqiiqadaha soo aadan madaxtooyada ay tagi doonaan xubnaha siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhammaantooda waxay ka wada hadli doonaan sidii mowqif midaysan ee la xiriira in midnimo iyo wadajir ay muujiyaan lagana hortago duulaanka qaawan ee madaxbanaanida Soomaaliya imikan lagu soo qaaday. waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka uu doonayaa in ay talo ku yeeshaan duulaanka qaawan ee dalka ay Israa'iil ku soo qaaday in mowqif midaysan laga qaato tallaabooyinka la filan karo in dawlado kale oo wadada ku soo jira ay qaadi karaan maalmaha soo aadan taasoo horseedi karta in la kala dhantaalo midnimada Soomaaliyeed. kulanka saacadaha soo aadan ee Muqdisho ka furmi doono waa mid si guud ay dadka Soomaaliyeed ay farxad gaar ah ay ugu muujinayaan maadaama xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo muxaafidkaba ay ku midoobeen in ay difaacaan qadiyadooda isla markaana ay dhan iskaga beeraan khilaafka dhexdooda ee ku qotoma arrimaha siyaasadda. madaxweyne xasan sheekh maxamuud tani waxay u noqon doontaa mid uu ku mutaysto natiijo wanaagsan oo dhibco siyaasadeed ah iyadoo oo lagu amaanayo inuu dhexda u xirtay saacadihii ugu dambeysayna uu xiriiro kala duwan oo dhinaca diblomaasiyadda gudaha iyo dibadda uu sameynayay oo uu gabi ahaanba kaga biyadiidayo tallaabada guracan ee yuhuudda ugu soo xadgudubtay midnimada iyo jiritaanka qarannimada Soomaaliyeed. wixii xogay macluumaad ku soo kordha adiga ugu horeyn doona waxaan Yuusuf Maxamed Axmed isha ku haya page-kayga. nabadgelyo.